قد دنت عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان، هي أفضل الأيام في الدنيا، فكن فيها مجدا واستبق لجناني. استقبلوها بالعبادة واغنموا فضل الإله الواحد الديان، فضل الإله الواحد الديان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى فضلك يا ديراتك وأدومدي سسيه وحاكمد إنه ويالي maalmo iyo waqtiyo la badsado oo lagu dadaalo laguna tartamo daacadka iyo cibaadooyinka iyo acmaasha wanaagsan. maalmahaas oo qiimo iyo fadaa'il gooni ah lagu sheegay si dadka ay uga faa'iideystaan, aadna ugu tartamaan, iskuna dhiirigeliyaan ka faa'iideysigeeda. dadka muslimiinta si guud ahaaneedna waxay u qaybsamayaan laba qaybood: qayb qaafiliin ah, mooganayaal, iska ilowsan qiimaha iyo fadaa'isha maalmahaas iyo waqtiyadaas gaarka ah lagu sheegay, oo ay ula mid tahay maalmaha caadiga ah oo kale oo aan qiimo iyo ahmiyad gooni ah siinin. iyo qayb fursadaha gaada oo fursadaha la sheegay ama maalmaha ama waqtiyada fadliga goonida ah lagu sheegay aad uga faa'iideysta si uu u helo qiimaha ajarka iyo fadliga lagu sheegay. daqiiqadaha soo socda waxaan ka hadli doonaa 10 maalmood oo ah maalinka koowaad ilaa maalinka 10aad ee ugu horeeya bisha Dulxija ama bisha Carafa, oo ah 10 maalmood oo ka duwan dhammaan maalmaha kale ee sanadka. sidaa darteed halkan waxaan kugu sheegi doonaa waxyaabaha 10kaas maalmood ee uga duwan yihiin, ugana fadli badan yihiin maalmaha kale ee sanadka oo dhan. waa marka koowaad 10kan maalmood waa maalmihii Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dhaartay. culimada cilmiga tafsiirkan waxay yiraahdaan Ilaahay marka uu shay ku dhaarto waxay ku tusaysaa shaygaas cadamadiisa, ahmiyadiisa iyo weyninkiisa. Ilaahay wuxuu yiri quraankiisa kariimka ah wal fajri wa layaalin 10. layaalin 10gaas Ilaahay uu ku dhaartay waxay culimada tafsiirka intooda badan ay ku fasireen in ay tahay 10ka maalmood ee ugu horeeya bisha Dulxij. waa marka labaad maalmahan waa maalmihii Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jideeyay oo uu amray in Ilaahay subxaanahu wa tacaala la xuso. Ilaahay quraankiisa kariimka wuxuu ku yiri wayadhkuru ismallahi fi ayaamin macluumaatin calaa maa razaqahum min bahiimatil ancaam. si ay Ilaahay u xusaan maalmo macluumaad ah oo la yaqaano. maalmahaas macluumaadka ahna waxaa culimadu ay ku fasireen in ay tahay 10ka maalmood ee ugu horeeya bisha Dulxij. fadliga saddexaad oo ay maalmahan leeyihiin, nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku sheegay in ay tahay maalmaha adduunyada kuwa ugu fadliga badan ee ugu qiimaha badan. nabigeena wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam afdalu ayaami dunya ayaamul 10. maalmaha adduunka oo dhan waxa u fadli badan oo u qiimo badan maalmaha 10ka ah. wuxuu ka wadaa sallallahu alayhi wasallam 10ka maalmood ee bisha Dulxija. sidaa darteed culimadu waxay sheegaan in 10kan maalin ay tahay 10ka maalin ee ugu fadliga badan, ugu qiimaha badan maalmaha sanadka oo dhan. marka laga hadlayo habeenada, waxaa sanadkii oo dhan ugu fadliga badan 10ka habeen ee ugu dambaysa bisha Ramadaan. laakiin marka laga hadlayo maalmaha, waxaa sanadka oo dhan u fadli badan oo u qiimo badan 10ka maalin ee ugu horeysa bisha Dulxij. saa darteed in badan oo inaga mid ah waxaa laga yaabaa in 10ka habeen ee Ramadaan markii la gaaro ay isku diyaariyaan oo cibaadaadka ay badiyaan, waana wax muhiim ah oo loo baahan yahay. sidaas oo kalena 10kan maalin ee bisha Carafo ama bisha Dulxij ugu horeysa waa 10ka maalin ee ugu fadliga badan, uguna qiimaha badan sanadka oo dhan. sidoo kale arrinka afaraad ee tilmaamayo qiimaha iyo fadliga maalmahan ay leeyihiin waxaa ka mid ah 10kan maalin waxaa ku dhex jiro 2 maalin oo ayagana ah maalmaha ugu khayrka badan sanadka oo dhan, waana maalinka 9aad iyo maalinka 10aad, yawmu Carafa iyo yawmu Naxri. si gaar ahaaneedna maalinka Carafa oo ah maalinka ugu fadliga badan maalmaha sanadka oo dhan. maalinka Carafa oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu yiri waxaan Ilaahay agtiisa ka xisaabsanayaa
inuu iigu dhaafo dunuubtii sanadkii hore iyo sanadka soo socdo. waa maalin ilaahay dembiyada uu dhaafo. waa maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naarta ka xoreeyo addoommadiisa mu'miniinta ah. waa maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala aad loo baryo oo la ducaysto, ilaahayna addoommadiisa uu ka ajiibo waxa ay weydiisteen. arrinka shanaad ee tilmaamaya qiimaha iyo fadliga ay leeyihiin 10kan maalin ee ugu horeysa bisha Carafo ama bisha Dulxij, waxaa weeyaan 10kan maalin gudahooda waxaa ku soo kulmay ummahaatul cibaadaad. cibaadooyinka kuwoodii ugu waaweynaa ayaa 10kan maalmood gudahoodii ku soo kulmay. salaadii oo aad iyo aad in loogu dadaalo ee mudan tahay tii waajibka ahayd iyo kuwii sunnooyinka ahaa, ducadii iyo allabarigii, sadaqadii, qaraab xiriirintii, soonkii oo la jideeyo qofkii awoodi kara in 9kan maalin uu soomo maadaama ay ka mid tahay acmaasha in la soomo aad iyo aad la iskugu baraarujiyey maalinka Carafo. sidoo kale waxaa 10kan maalin gudaheeda la sameeyaa acmaashii waaweyneyd ee xajka. sidoo kale 10kan maalin gudaheeda muslimiinta waxay gowracaan xoolaha udxiyada oo masaakiinta iyo dadka fuqarada ah laga quudiyo. saa darteed nabigeena asagoo rabo markii inuu aad iyo aad noogu dhiirigeliyo inaan maalmahani ka faa'iideysano ayuu xadiiskii Bukhaari ku sugnaa ee Ibn Cabbaas uu warinaya. nabigeena wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam: aamin ayaamin alcamalu as-saalihu fiihinna ahabbu ila allahi min hadhihi al-10. ma jirto maalmo uu ilaahay subxaanahu wa tacaala camal saalix ah oo la sameeyo uu ka jecel yahay maalmahan. waxay dhaheen walal jihaadu yaa rasuulallah, rasuulka allow jihaadka xataa ma ka fadli badan yihiin? nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam: walal jihaadu fii sabiilillah, jihaadka xataa waxaa ka fadli badan acmaasha maalmahan la sameeyo, cibaadaadka maalmahan dhexdeeda looga faa'iideysto. nabigu wuxuu ka soo reebay qof jihaadkii inta u baxay naftiisii iyo xoolihiisii midna aan la harin ee labadaba la baxay, kadibna aan la soo noqonin oo naftiisiina la dilay, xoolihiisiina meesha ay ku baabi'een. saa darteed qofka muslimka ah maadaama uu yahay qof fursadaha ka faa'iideysta, waxaa muhiim ah inaan ka faa'iideysano oo aanan noqonin dad qaafiliin ah oo hilmaansan qiimahaas iyo fadaa'ishaas weyn oo ay maalmahaasi leeyihiin. waxaa maalmaha wanaagsan looga faa'iideysan karaa camal kasta oo wanaagsan. qofku inuu ku dadaalo waajibaadkii, salaadihii, inuu ku dadaalo soonkii, adkaartii iyo alla xuskii, in maalinka Carafo si gaar ahaaneed soonkeedii uu ugu dadaalo, ilaahayna uu tuugo oo uu baryo. camal kasta oo wanaagsan ha noqoto sadaqo uu baxsado, qaraabada uu xiriiriyo, wanaag uu sameeyo, dad uu wax u taro. maalmahani waa fursad laga yaabo inaysan mar kale ku soo mari doonin. fursadahana waxaa muhiima markay ku soo aadayaan in marka hore aad tahay qof u diyaarsan qiimahooda iyo fadligoodan og, kadibna ka faa'iideysta, dadkana ku dhiirigeliya inay ka faa'iideystaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiinayaa inuu naga dhigo kuwa ka faa'iideysta 10kan maalmood iyo maalinkaas Carafo ee 9aad ee qiimaha badan ee ku jira. aad iyo aad u mahadsantihiin. aadna waa idin salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.